haddaad rabtay inaad qorshe samaysatid waxaad u baahan tahay laba arrimood oo noloshaada ka mida inay ku cad yihiin. haddaad rabtay inaad qorshe samaysatid laba qaybood oo noloshaada ka mid ah waa inay ku cad yihiin. shayga koobaad laabudda an yakuuna cindaka risaalatu waadixa, waa inaad you should have a clear mission of your life, waa inaad haysatid mission cad oo noloshaada ku sugan. waa maxay mishinkaaga nolosha? maxaad u nooshahay? maxaad rabtaa adduunka inaad ku soo siyaadisa? xaggeed u socotaa? maxaad higsanaysaa? mishinka waxaa la yidhahdaa waa dariiq mustamir ah ilaa aad ka dhimatid, waa waxa aad ku socotid ilaa aad ka dhimatid. marka naftaada qorshe u samee. qorshahaas waa maxay? horta waa maxay risaalada aad xambaarsan tahay? innagu waxaan naqaanaa qofka marka la weydiiyo risaaladiisa wuxuu ku leeyahay yaa allah wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. ilaahay baaba noo sheegayba jinnigii insa waxaan u abuuray inay caabudaan, anigi waa inaan ilaahay caabudo. laakiin waxaad ogaataa risaalada qofku uu u nool yahay waxaa weeye waxa aad rabtid in aad ku sugnaatay ilaa aad ka dhimato. waa messageka aad xambaarsan tahay. waa maxay? haddaadan message lahayn, haddaadan mission lahayn, meel ma gaari kartid. walidaalika waxaad arkaysaa qur'aanka markuu ka hadlayo masalada risaalada ah, qur'aanka way ku soo noqnoqotay. ilaahay ambiyadu ka hadlaa. waxaad arkaysaa watawallaa canhum وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. رسالة حنبار سنايا أمضيدي وان إذن قارسي الرسالة دي بولية نيم حلو حلو ليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة دي كما أذا قارسين نيم محمد الصقع نرشة رسالة نرشة وحيتاي وحوليه نيم محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحال إيسو بحيي إن الأخلاق ده لما يستره. رسالة نيم محمد محي إنه أخلاق ده لما يستره. وحال كيسا أولي هاي فقل إني أنا النذير المبين. وحان هاي مدقية وعد. وحال إيسو دري إن ددك أدقو وعن حقة الصو ورسالة عدوي. وحال إذا هذا آيات رسالة دي النبي محمد عديسي أو جامعة وحوي آيات إلهي أولي تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وشرح الدونا آيات وحلو لجيد لكن وحال ليه هاي مركز ربتين إنها رسالة هذا فهمتين بل بس عبو انتاد أدون كردن أتكاقا تفصح كلقا ميال فريس كلقا ميال فريس إله صبنا يقول إنما أعدكم أن تقوموا لله مثنى إنما أعدكم بواحدة. هل أرمبان إذن كوانينيا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. كلقا ميال فريس فكر وحد كفكرتا أدون كان مهمة أن أجوغ وامحي كفكر من dhalinyaro tahay arday baa tahay mutacallim baa tahay ganacsada tahay waalid baa tahay adduunkan maxaad u joogtaa fakar waxa ku soo baxaysa adduunkan waxaan u joogaa waxaas iyo waxaas qor waraaq ku qor waxaan qortaa aniga risaaladayda adduunka aan u joogo waa saan iyo saan aniga markaan diyaariyay risaalada aan adduunka u jooga maalan waxa ii soo baxday adduunka waxaan u joogaa waxaan idhi risaaladeedu waxa weeye irdaa'u llahi tacaala inaan ilaahay raali geliyo wa an aciisha saciidan inaan nolol sacaada ah ku noolaado degan fiiri wa ufiida linafsii wa ufiida lilaakhariin naftaydana inaan u faa'iideeyo aan wax baro dadka kalena inaan wax baro intaas aan u noolahay inaan alla raali geliyo nolol degan oo sacaado la aan ku noolaado waxaan haysto anoon fiirinna xataa inaan wax degan ku noolaado nolol degan ku noolaado inaan dadka naftayda u faa'iideeyo dadka kalena aan u faa'iideeyo risaaladayda waa intaas marka aan risaaladaa qoro oo waraaq aan ku qoro hallayn waa inay ka badanin derbigaan ku dhejinayaa meel aan u jeeda habeen iyo subaxba aan arkayaan ku dhejinayaa akhi markay isweydii maxaad u nooshahay adduunka maxaad adduunka u joogtaa annaga markaa ciyaalkeen waxaa nala weydiin jiray sheeko xoogaa wareer waxaa la dhihi jiray ma waxaad u nooshahay inaad wax cuntid mise waxaad wax u cuntaa inaad noolaatid ma waxaad wax u cuntaa inaad noolaatid mise waxaad u nooshahay inaad wax cuntid aniga hadda waxaan fahmay
waxaan wax u cunaa inaan noolaado laakiin haddaan u noolaado inaan wax cuno 6 bilood gudahood overweight baan noqonaya soo ma waa xaqiiqa weyn marka waa risaalo waay fiir risaaladaa lagu baraya waxaa lagu barayaa nolosha waxa aad u joogtid ma aha inaad cunto cuntid keliya ma aha fiiri risaalo adduunka waxbaad xambaarsan tahay risaalada aad xambaarsan tahay waa maxay waxaa la yidhaahdaa risaalada aad xambaarsan tahay waxaa lagu gartaa inay sax tahay innaga ardaydu waxay yaqaanaan mission statement waay mission statementigaaga waxaa lagu gartaa 3 shay inay ka maqnayn hadday 3 shay ka maqan yihiin waad dhunsan tahay haddaad qaradka aad u nooshahay ama muhiimadda aad u nooshahay ama dowrka aad nolosha ku leedahay haddii 3 arrimood ay ka maqan yihiin waad dhunsan tahay mid afraadna waa lagu dari karaa midda koowaad waa inay kaaga soo dhexbaxdo markaad fakartid allah fiiri waxaan idin idhi allah waa inay ka soo baxdo walidaalika anigu waxaan idhahay waxaan u noolahay irdaa'u llahi tacaala inaan alla raali geliyo fiiri inaan alla raali geliyo number 1 bay ii tahay haddaad alle ka weydid risaaladaada mishinkaaga waad dhunsan tahay ma fiirsada irdaa'u llahi tacaala dhallinyaradeenna waxa inta badan dhumiyana waxaa weeye risaaladooda allah boos kuma leh ka fakarayaa inuu wax barto inuu meel gaaro inuu khatar noqdo laakiin allah baa ka maqan midda labaad naftayda waa inaan ka fakaro waxaa kaloo ka mida nolosha waxaan u noolahay naftayda an aciisha saciida inaan sacaado ku noolaado inaan naftayda ma halmaamayo waa inaan naftaydana ka fakara maxaa naftayda u tari karaa mas'alada saddexaad alaakhariina dadka kale waa inaada iloobin ehelkaaga carruurtaada xaaskaaga mujtamacaaga waalidkaaga maxaad u qaban kartaa saddexdaa marka waa inay ku jiraan allah rabbaka nafsaka iyo alaakhariin markaasaad waxaad ku dari kartaa gaayaat ukhraa waxyaabo kale waxbarashadii iyo hawlo kale iyo markaasay imaanayaan laakiin intaas waa aasaaska inta awey markaad risaaladaa qortay akhi haddaadan risaalo lahayn risaaladu waa waxa la isku cabiro oo nafta lagu kontaroolo derbiga meel aad u jeedid ku dheji bal intaad fakirtid keligaa meel fadhiisatid oo shaah karsatid oo shaahan jecel lahay oo xalwad aad qaadatid xalwaddana waan jecel lahay xalwad cun qur'aan daaro muusig dhegaysta kuma dhahayo qur'aan daaro fakar 2 saacadood saacad fakar waxaad ka fakartaa aniga adduunkan maxaan u joogaa oon u noolahay waxaa kuu soo baxa inaad alla raali geliso inaad naftaada wax tarto inaad mujtamacaaga wax tarto ayadoo hal layn aan ka badnayn waraaq weyn oo qurux badan ku qor derbiga ku dhejiso markaad derbiga ku dhejisid subax iyo galabba waad arkaysaa dad baa waxay dhahaan oo sheekhu maxaa derbiga ugu dhejinayaa waxaan rabaa waxa markaad aragto subax iyo galabba naftaadu way la qabsanaysaa waad isku kontrooli kartaa waad saaxiib baad la noqonaysaa beri baan waxaan deganayn qol marka waxaan nala degan guri baan deganayn waxaan nala degan nin dhallinyaro halmaan badan marka maalintii dambe baalkan stoofka ama wax lagu kariyo oo daaran buu ka tegey habeenkiiaan marka eber ka dhignay warniyo guriga waan ugu gubi rabtay war maxaa si ka ah warniyo waa sidee war waan wareerinay waraaq weyn intuu soo qaatay oo stoof uu ku qoray buu albaabkan ka baxayna ku dhejiyey marka uu sii baxayo arkaa stoof uu soo noqdaa wuu fiifiiriyaa annagiyaa buufis marka nagu dhacay markaa sii baxay stoofka markaa aragtid gadaal baa u noqonaysaa waa fiirinaysaa fiiri waxa markaad arkaysid saamayn buu kugu samaynaya haddaad albaabkaaga ku dhejisid risaaladaada aniga waxaan u noolahay inaan alla raali geliyo oo deganaan aan ku noolaado oo aan naftayda u faa'iideeyo oo aan dadka kale u faa'iideeyo waan isku kontroolayaa mar walba marka maalan haddaan arka naftaydo alla caasinaysa waxaan leeyahay risaaladaydii ma ahayn saas haddaan xaaskayga hadday buuq igu furto waxaan leeyahay xaajiyooy aniga risaaladaydu waxaa weeye inaan nolol degan ku noolaado adiga taada soo dhejiso halkaa ku soo dhejiso aniga halkaasay ku dhegan tahay taadana halkaa ku dhejiso taadana waan waafaqaynaa taydana waan waafaqaynaa marka buuq ma jiro waa inaan nolol degan ku noolaado inaan naftayda inaan dadka kale u faa'iideeyo risaaladaas cad marka aad yeelatid waxaad kaloo u baahan tahay waxyaabaha risaalada lagu garta waxaa ka mid a su'aalaha isweydiinaysaa maxaa kuugu muhiimsan adduunka
maxaad rabtaa inaad noqotid waxaad dhici karta markaa inay kuu soo baxdo intaasoo shay oo muhiim bardi hadda waxaa isweydiisaa nolosha maxaad u nooshahay innaga dhan waxaa noo soo baxaysa inaan ilaahay caabudno sax oo aan nafteenna wax tarro oo dadka kale aan wax tarro waa maxay waxa noloshaada ugu muhiimsan oo ku khuseeya maxaa ugu muhiim fakar waxaad ka fakartaa 5 shay oo noloshaada ugu muhiimsan ka fakar waxa kugu soo dhalinyarada waxa ku soo dhacaysa waxa igu muhiimsan inaan quraanka xifdiyo waxa igu muhiimsan inaan cilmi barto waxa igu muhiimsan inaan guursado waxa igu muhiimsan inaan carruurta tarbiyeeyo waxa igu muhiimsan inaan lacag yeesho 5 shay oo noloshaada ugu muhiimsan waraaq ku qoro 5taas shay waa inaad sanadkan meel ka gaadhid wey fiiri waa small waxaa la yidhahdaa waa important aspects of life noloshaada waxyaabaha muhiimka ah wey qor meel ku qor diiwaan geli meel ku qor gabar baa nin intay u timid nin mucaalid nimankan dadka waxbara oo nolosha horumarkeeda ka sheekeeya waxay tiri waxaan rabaa in counseling la siiyo marka su'aal buu weydiiyo wuxuu ku yidhi maxaa ugu muhiimsan noloshaada maanta aad rabtaa kasita inaan baabuur gato adduunka waxaa iigu muhiimsan inaan baabuur yeesho su'aal muhiim ah wey dhallinyarada teenagerska ah 6 iyo 10 iyo 5 iyo 10 iyo jiraan adduunka waxaa ula muhiimsan inuu baabuur yeesho markaasuu haddaad baabuur yeelatid maxaad ka faa'iidaysaa markaasita wakhtigaa ii seef garoobay meeshii aan 3-4 meelood maantoo dhan aan tareen saaraan lahaa iyo bas saacad gudaheed baan ku tegayaa wax walba markaasuu yahay haddaad wakhti seef garaysid maxaad ka faa'iidaysaa markaasay tiri more production waxaan soo saarayaa wax tiro badan waxaa dhici karta saacad gudaheed inaan carruurta wax u soo gato oo cunto aan u kariyo oo iskuul aan ka soo qaado oo aan grocery shopping u soo sameeyo saacad gudaheed haddaan baabuur wato markaasuu haddaad more production samaysid maxaa ka faa'iidaysaa markaasay tiri satisfaction naftayda inaan satisfaction ku sameeyo inaan naftayda qanacdaan rabaa deganaan aan ku noolaado mutma'inan aan ku noolaado markaasuu wuxuu haddaad itmi'naan iyo deganaan ku noolaatid maxaad ka faa'iidaysaa markaasay waxay tiri markay darajadaa joogtay bay ilmaysay waxaa u sawirantay iyadoo degan oo nolosha meesha ugu sarraysay joogta oo ka fakeraysa maxaa ka dambeeya way ilmaysay waxyaabaha lagu gartay risaaladaadii inaad gaadhay waxaa ka mid ah darajada ugu dambaysa qanaacada naftaada inay gaadho waxaad qoraysa markaa isweydiisa tiraahdo maxaan adduunka rabaa maxaan rabaa inaan gaaro fiiri waxaan ku inaad alla raali gelisid waxyaabaha ikhwaani qof kasta oo naga mida wuxuu leeyahay haddaad rabtid inaad risaaladaada qorshe inaad samaysid qodobka labaad waxaa weeye inaad leedahay waxa la yidhaha ru'ya alwaadixa ru'ya alwaadixa waa qorshe dhammaystiran oo cad weeye waxaa la yidhahdaa waa waxa la yidhaha visionka weeye fiiri tii hore waxay ahayd risaalo tan waa qorshe cad oo degan maalan 5 sano oo soo socda maxaan rabaa inaan noqdo 2 sano oo soo socda maxaan rabaa inaan noqdo ambiyadii ilaahay marka laga sheekaynayo qorshe cad bay lahaayeen hadda nebi maxamed waxaad fiirisaan marka uu maka ka baxayey qorshihiisa waxay inuu maka ku soo noqdo qorshihiisa waxay maka inuu ku soo noqdo ma ku soo noqday haa maalinta uu ku soo noqonaya muxuu ilaahay ku soo dejiyey laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaq waxaad akhi ka fakertaa marka qorshaha noloshaadu waa maxay waxaan kuu ballan qaadayaa haddaad 4 darajo martid keliya inaad qorshahaaga gaaraysid 1 inaad dareen leedahay inaad rabtid inaad wax noqotid 2 inaad qorshe samaysid qor waxa aad rabtid inaad noqotid midda saddexaad dhaqan geli yuusan kaa noqonin qorshuhu keliya wax la qore dhaqan geli midda ugu dambaysa ku sabir qorshahaaga waxaan idinla wadaagayaa 2 qiso oo dadka qorshaha yeesha say u gaaraan ah wallaahi waxaan arkay oon la iiga sheekaynin nin dhalinyaro oo dadka waxa weeye mar walba qorshaha deji wuxuu ku leeyahay aniga noloshada dhan qorshay ku socotaa wuu guursaday gabar buu dhalay gabadha markuu dhalay baan u tahniyadaynay aniga marka macallin quraan baan ahaan jiray markaasuu wuxuu yidhi macallin cabdirasaaqow waxaan rabaa inantayda marka ay 2 sano gaadhay ayadoo af soomaaliga dhammaysay daadisay inaan iskuulka dugsiga kugu keeno quraan aad u dhigtay markaasaan waxaa idhi aniga waa iska hadlaysaa 2 sano waa arki doontaa 2 sano iyo bil camal gabadhii oo jirta
baan jidka iskaga hor nimid iyadoo yar oo madaxa u xiran yaho la socoto si aabba orod adeer salaam sita assalaamu calaykum inta islaamta wacalaykum assalaam adeer see tahay saan waa fiicanahay aduu seeta waa fiicanahay saan iri ka warran reerkiinni wuu fiican yahay carruurtii walaalaha ahaa sita walaalo ma nihin aniga iyo hooyo keliya weeye reer kale ma jiro saas u hadlaysaa markaasay ti aduu see tahay waa fiicanahay xaaskaaga ka warran adeer xaas ma lihi carruurna ma lihid miyaa ma lihi markaasaa aniga yaabaa iga soo haray waxaa warniga gabadha maxaad ku samaysay markaasuu qorshaan u dejiyey qorshihii baa ku socda waxay ahayd 2 sano hore inay luuqada barato wayna baratay waniyo seed ku bartay luuqada wuxuu yiri waqti baan geliyey waligay buu maalin baan reer dariska uga tagay maalintiina wacli hubay soo baratay halka ma wacli hubay ka soo bareen fiir waxaad fiirisaa qorshuu lahaa ninka qorshihiisa wuu gaaray nacam wuu gaaray nimankan hadda aad maqlaysaan adduunka wax noqday oo dhan waa qof qorshe lahaa oo qorshihiisa gaaray ninkan la yiraahdo Waltham waa ninkan iska leh wall market dukaamada leh waa dukaamada adduunka ugu lacagta badan ayaa waxaa la grocery shopping meel yar wuxuu lahaa lagu iibiyo grocery-ga waxyaabaha lagu iibiyo cuntada iyo markaas wuxuu dhihi jiray waxaan rabaa inaan sameeyo dukaamo isku xiran oo 3 sifo leh alaab raqiis ah oo quality fiican leh iyo shaqaalo firfircoon oo tiro badan leh baan rabaa inaan sameeyo hadda waxaan la yaabay marka aad rabtay inaad wax heshid degdeg ah oo raqiis ah $10 iyo wax la mid ah waxaad aadaysaa wall market jidka aad martidba inta badan qof baa kaaga hor imaanaya ku dhahaya can I help you can I get you something ku dhahaya ma ku caawiya waxaad u baahan tahay ku dhahaya wax xaqiijiye qorshuu lahaa uu gaaray waxaad ka fikirtaa walaalle wallaahi ma gaaraysid qorshe aad leedahay weligaa haddaadan intaad qorto qorshaha aadan dhaqan gelinin waxaa la yidhahdaa qofka qorshaha leh wuxuu xaqiijiyaa 2 arrimood dadka kale ma helaan wuxuu xaqiijiyaa waxa la yidhaahdo sacaada iyo najaax qofka keliya oo sacaado iyo najaax hela waa qofka qorshaha leh sacaada iyo najaax waa maxay inaad noloshaada aad sacaado ku noolaatid happiness inaad ku noolaatid iyo inaad succeed noqotid oo meesha hartid gaadhid waxaa lagu helaa inaad qorshe leedahay haddaad leedahay mission iyo vision aad ku socotid oo cad oo aan risaalo iyo qorsho waad gaaraysaa waxaadna xaqiijinaysaa sacaado iyo najaax haddaad risaalo keliya leedahay laakiin aadan qorsho lahayn waxaad xaqiijinaysaa sacaado laa najaax ma xaqiijinaysa walidaalika dadka ahludiinkaabaa ugu badan sacaaday ku nool yihiin laakiin najaax ma gaaraan fiiri najaaxa ulama jeedo inuu qofku cibaadaysto keliya waa inuu waxbarashadii meel ka gaaro oo dhaqaalihii meel ka gaaro oo dugsigaaga 2 sano markuu furan yahay intaasoo cunug ay qur-aanka xifdiyaan way fiiri waa najaax wey marka waxay xaqiijiyaan sacaado wuxuu ku leeyahay wallaahi waa naftu way degan tahay ilaahay wuu caabudaa waa habbi laakiin wax ma haysto dad wax ma taro qorsho male waa sacaado keliya dadka qaarkood waxay leeyihiin ru'ya qorshay leeyihiin laakiin risaalo ma leh waxay xaqiijiyaan najaax aan sacaado lahayn waa dhalinyarada hadda wax baranaysa fiiri wuxuu rabaa inuu najaax gaaro inuu meeshuu rabay gaaro laakiin by the time he finished the school ama she finished the nursing school xataa muslim ahayn baa dhici karta risaaladiyaa ka maqan fiiri gaalada lacag bay haystaan meel bay gaareen laakiin qofka ka fakaraya asagoo milyaneer inuu isdilo waxa weeye qorshe wuu leeyahay laakiin risaalo ma leh mission ma leh gabar waxaa jirtay aad waxbarashada ugu dadaashay oo waxbaratay dhakhtarad bay noqotay oo sacuudiyada markay weynaatay ilaa ay PhD diyaarisay dhakhtarad ay noqotay wax guursaday weyday markay weynaatay dhakhtarka carruurtay noqotay baa leeyahay marka suuxii baa carruurtu leen u soo galaan qoorta waxaa u saaran bahalkii lagu weysitaynayey iyo qamiiska caddaan ee dhakhtarka subaxii dambe oohin meesha kala kacday intay bahalkii iska siibtay waxay tihi bahalkan wuxuu iila mid yahay xadhig laygu ceejinayo qamiiskaanna wuxuu iila mid yahay cad kafantii qabriga khuduu shahaadaatii wasmacuuni kalimata maama war shahaadooyinkayga qaata oo cunug hooya idhahaya maqashiya maxaa ka maqan sacaada najaax way haysataa marka akhi haddaad kartid inaad dhakhtar noqotid inaad injineer noqotid inaad businessman noqotid inaad waxaan dhahaa waalidiinteenna
waxaad ka fakartaan income inaad heshid laakiin kama fakartid income kan xalaal iyo xaraam wuxuu yahay najaax waad xaqiijin kartaa guryo waad dhisi kartaa laakiin maxaa ka dambeeya hadduu income xaraam iyo maxaa ka dambeeya waxaa jira la yidhi dad aan qorshana ma leh risaalana ma leh labada hadduusan qofku midna lahayn sacaadana ma gaaro najaaxna ma gaaro waa ciyaalkeenu say u badan yihiin carruurteenu hadduu qofku iyo cunugu uusan mishina lahayn vision lahayn qorsho male risaalo male wuu iska socdaa wuxuu noqonayaa un cunug keliya guriga ka soo baxa meelaha is istaaga cayaara meelahaasuu wareegaya haddaad war maxaa kugu dhacay wuxuu ku leeyahay isboring just wanna kill my time waqtigaan dilaya waqtigaan isdhaafinaya entertaining myself qofkaasuu xagee u gaaraya ikhwaani marka waxaan idinku boorinayaa maanta waad yaryartihiin dhallinyaro badanaya ninka dhallinyaradaa oo jira 25 ama 17 ama 15 ama 30 jira maanta fursad baad haysataa wallahi markaan arka dhallinyarada 15 jira waxaan yidhaahdaa I wish I knew this when I was 15 waxaan jeclaan lahaa markaan 15 jiray inaan aqoon lahaa nolosha sida loo qorsheeyo laakiin maanta aduu fursad baad haysataa waalidkow aduu fursad baad haysataa waxaa dhici karta inaadan qorsho lahayn tusaale yar baa idin siinaya annaga xalay waxaan ka nimid maalan magaala yaan ka nimid adoo jooga magaaladan haddaad rabtid inaad aadid magaala lahahda stockholm haddaad rabtid inaad aadid hadda aragtid inaad aadid maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad baabuur qaadatid reenti soo maa inaad baabuurka shidaal ku shubatid inaad navigation system qaadatid inaad baabuurka tahay reis baad iska fiirinaysaa bucket money gaaskaagii baad qaadanaysaa waxaasoo dhan qorsho weeye markasaad dhaqaaqaysaa ka warran adoo baabuurkii gaas ka buuxiyey oo navigation aan qaadanin oo aan qorsho samayn haddaa iska dhaqaajisid waxaad ku waabariisanaysaa adoo joogo xuduudka denmark soo ma baad ku waabariisanaysaa dhinaca kale aadaysaa xaqiiqo waxaa dad badan oo naga mid a waa saas waa iska soconnaa nolosha waa guursanayaa wuu iska dhaqaajinayaa gabar buu guursaday by the time ay hal cunug dhashaba waryahe war midaan caaw dhaqaylinaysa xaggeed ka timid iyo waa wakhtigaan u socotaa iyo wuu furayaa sababta qorsho ma leh waalidkii saas way carruur baa la dhalay tiro badan carruurta qorsho ma laha mid waa madax adkaaday mid guriga buu ka cararay mid waa hallaabay mid waa wareeray mid ilaahay baaniyo qur-aankiibuu xusdiyey waalidka uu isla hadlaya waryahe war waxaa dhici karta adeer inaadan is ogeyne inaad u sii drive garaynaysa magaalo kale way dhici kartaa sababta qorsho ma lihin marka naftaada qorsho u samee carruurtaada qorsho u samee ka fakar fadhiiso fakar maskaxdaada ka fakar war 10 sano soo socda 5 sano soo socda sanad kaliya ka dhig sanadka soo socda xagee baan rabaa inaan gaaro maxaan rabaa inaan qabsado maxaan rabaa inaan tabcado maxaan rabaa inaan xageen u socdaa ka fakaro isweydii waxa xaqiiqo ah inaad rabtid meesha aad rabtid inaad gaaraysid waxaan kelimadan ku soo khatimayaa afartaa shay qofkii raba inuu meel gaaro afartaa shay dhaqan geli wata naftaada hagaaji marka hore okow waxaad yeelataa himmad sare yeelo waxaad ka fakartaa mar walba inaad positive noqoto qof iijaabi ah naftaadana qorsho u samee haddaadan naftaada qorsho u samaynin meel ma gaaraysid intaasaa dhila jaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu